بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jiray nin Soomaali ah oo u kaadiyay xagga sare kor ayuu u kaadiyay markaas waxa lagu yiri warniyo maxaa kor ugu kaadisay markaas wuxuu yiri waxaan nahay duul ay culimo wareerisay ninka waa runtii waa nin cilmi iyo aqoon leh laakiin wuu wareeray nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ida atatkum alghaida hadaa timaadaan meesha xaajada lagu guto فلا تستقبلوا القبلة قبلتها قابلنا ولا تستدبروها هنا ودبر جيدنا قبلة أنت جرتها قبلة أنت جرتها ما دام قبلة أنت جرته حق إذا جيسن كرو دبرنا جيدن كرو دبر كنا جيدن كرو أرنت ولدي ذي أو قرح كصباح أي قرح ضع أي لجو أقوليه شافعيين تنوحي رهذين markay qorax soo baxayso qofka yuunan oo la qasdin xaaji inuu u guto dhinaca qorax ka soo baxa markay qorax dhacaysana yuusan qofka oo la qasdin inuu halka u xaaji guto ninkan markuu wareeray inta waa la diiday hor waa la diiday gadaal waa la diiday maxaa marka waxa u soo baxday inuu kor u kaadiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qiblada ha u jeesanina hana u dhawr jeedinina arintaasi haddii meel cillo oo bannaan haday tahay meel duurad ku xaji gudanaysa sida kuwan baadiyaha kale markaas oo kale laguma ogolo qiblada ina u jeesato una dhabar jeediso laakiin anaga hadda musqul isticmaalna dhagax ha ahaato deer ha ahaato jiingad ha ahaato haddii mar musqusha aad ku jirto meesha rabto aad u jeesanaysa laakiin meel bannaana haday tahay qiblada uma jeesanaysid dhabarkan uma jeedinaysid sidoo kale meel bannaan oo duur hadaad ku xaajo gudanayso xadiiska ku soo arooray xadiiska lafdigiisa uu iga maqan yahay laakiin macnaheedu xadiiska macnaheedu wuxuu noqonayaa meesha duurka ah oo aad ku xaajo gudanayso gadaashaada waxa ka jireen mise geed agtiisa ku xaajo gudo hadii geed uusan agtaadii uu ka bixinna carrada saan u soo kuskus oo barada dhinaca iska mari نعم حديث حجر سات المامية ولبا حكمت كلو كسي دريي حديث هذا ما حسوسته أضاد حسوستان كومنتي كسو قرا مركا ولا ليالا وحد أنا مسقول استمع الله ما شان ربنا وجيسن كرنا لكن ميل دور هداد جوكتو وما جيسنيسيت قبلة ومن البرجيدينيسيت شافعيين تهذا الكير هذين بميل لغا دغبا والسلام عليكم